waxay tusaale ka tahay inay soo noqonayso taariikhdii magaaladii ahayd Dhuusamareen. xafladani waa muhiim waana ku mahadsantihiin qabanqaabadeeda sababtoo ah 26 Juun oo maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed xor ah la saaro lagana taago geyiga Soomaaliyeed. 26 Juun maanta saacado kooban ama daqiiqado kooban kadib waxaan noo bilaaban doonaa usbuuca dalka Soomaaliyeed looga yeero usbuucii xorriyadda. waa maalintii ku suntanayd maanta inaan ka xoroobnay gumaysi markii ugu horeysay 59 sano ka hor. waa maalintii Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcadde uu yiri saacirkii kala gurinayaan siduu yahay egne kaana siib kaana saar. waa maalintii Abwaan Cali Diiriye uu yiri maanta waa dharaartay dhibaataduna daysee dhulku noo iftiimee maanta waa dharaartan gobonnimada dhalinee calankii dhidibnee calanyow ha dhicin calanyow ha dheelin weligaa dhisno. waa maalintii uu bilowday macnaha taariikhda calanka Soomaaliyeed uu ku fadhiyo. waa maalintii codatay hashii maandeeq oo ay weliba mataanaysay. gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed oo halka fadhiya oo dhalinyarada ah oo qof waliba uu calanka haysto waxaan xasuusinaynaa in calankaas lagu soo bixiyay dhiig badan in loo soo maray dhib badan in lagu keenay in gumaysi dalkan laga soo xoreeyo in dhalinyaro idinla mid ah ay intay gumaysigii dalkooda ka xoreeyeen taagteen calankaas weliba ay u dabaaldegeen annaga nagu soo wareejiyeen. idinkana waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan difaacayaasha calankaas. waa tii la yiri calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahaygiina siiyey isagaa ku abaale. waa maalintii sida dhabta ahaa loo ciiday. waa kiina dhaxal siiyey xornimo waa kiina dhaxal siiyey dowladnimo waa kiina dhaxal siiyey nabad iyo midnimo waa kiina dhaxal siiyey inaan dunida ka mid nahay. waa sumadda lagu garto dadka Soomaaliyeed ee aan calankaas isaga ah ku mintidno. caawa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu jannada ka waraabiyo una mahad celinaynaa qof walba oo dhiiggiisa ku soo bixisay calankaas. caawa waxaan isxasuusinaynaa inaan annaguna soo qadinno nafteenna iyo dhiiggeenna. halkan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ama aan xasuusanno allah u naxariistay Axmed Gurey, Xaaji Faarax Omar, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Bashiir, Sheekh Xasan Barsame, Xaawo Cismaan, Xaawo Taako. saasay gabdhuhu uga fiican yihiin ragga. maxamuud Xarbi
iyo dhammaan 13 dhalinyaro SYL waxaa kaloo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ah heesayaal aan loo heesin oo dhaliyay midnimada Soomaaliyeed iyagana waan u mahad celinaynaa Allah u naxariistee Barre Axmed Nuur Yuusuf waa isagii lahaa calankeena suuban oo samada weko maalintii la suray sidaan u doonayo sama ku gaarnayo Sacuudi baa tahay waa inaan u sara kacnaa salaanta la hortagnaa markii la saaraba u sacabtunaa qaar baa noo dhaliyay calanka noo keenay gobonnimada noo dhiraandiriyey midhaha iyo heesaha innaga waxaa mas-uulna loo kaga dhigay inaan ilaalino taariikhdiisana aan ku wareejino kuwa naga dambeeya caawa waa xusuus wadareedkii dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ku suntan sanadkii 60 oo hadda laga joogo 59 sano waa sanadkii laga miro dhaliyay dadaal dheer oo dad u soo dhibtoodeen su-aashu waxa ay tahay marka 59 sano kadib xaggee baan joognaa bulshada Soomaaliyeed ee maanta nool waxaa lagu qiyaasaa in 70% ay da'doodu ka yar tahay 30 jir waxaa kaloo iyaduna isku jaan go'an caawa 30 sano oo aan dowlad ahayn iyo ku dhowaad 30 ama 29 sano oo qalalaase iyo soo kabasho isugu jirto waa taariikhdeena qoran 59 sano kadib xaggee baan taaganahay haddaba qof waliba oo Soomaaliyeed waa inuu milicsado 60kii iyo 59 sano oo ka dambeysay waa inaan isweydiino maxaa suurtageliyay sanadku markuu ahaa 1960kii in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo naga aqoon yar oo naga xoog yar oo naga xoolo yar inay ku dhiiradaan iskana xoreeyaan gumaysi dooda caawa waxa ay tahay baahida loo qabo in xorriyadda laga sii shaqeeyo baahida loo qabo in la suurtageliyo in dadka Soomaaliyeed ay ka sii shaqeeyaan midnimadooda inay isku tashadaan oo isku tolnaadaan waxba iskama bedel doodu waxay tahay 60kii waxaa isu yimid gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed waxaa naga lumay wixii naloo dhiibay macnaheedu waxay tahay shaqadii ay soo qabteen dhalinyaradii dhalisay xorriyadda oo isu keenay gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed caawa 59 sano kadib waa ay taagan tahay waa isbeddel weyn oo aanan caawa u sharxi karin Allah u naxariistee timcadde aanan u sharxi karin Xaaji Aadan Fallo oo aanan u sharxi karin Cali Sugulle aanan u sharxi karin Cabdullaahi Qarshe iyo Soomaalidii 60kii u soo dhididay inay xorriyadda dhaliso waa su'aal dhib ah oo qof walba oo Soomaaliyeed ay tahay inay xanuujiso halka deegaanadii waqooyi ay tabasho siyaasadeed ku maqan yihiin qaybtii koonfureedna waxay sanado badan la daalaadhacaysay dib u yegleelidda qarannimadii dib u dhalin lahayd midnimadaas haddii sanadku markuu ahaa 60kii ay Soomaalida gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed haddii ay gacmaha isqabsadeen dhaliyeen xorriyad oo
oo ay intay isu yimaadeen ay yidhaahdeen Soomaaliya ay toosoo isku tiirsada taageera hadba kiina taag daran haddii ay waqtigaas yidhaahdeen maxaa caawa annaga nala gudboon ragga iyo dumarka halkan fadhiya su-aashu waxay tahay caawa maxaa inala gudboon marka hore waxaan leenahay walaalaheenna waqooyi waxaan ka mahad celinaynaa safarkii ku salaysnaa qarannimada iyo dhiiranaanta ee dhalisay midnimadaas ay ku keeneen calanka waxaan ka garaabaynaa wax walba oo tabasho ah waxaana leenahay waxaan diyaar u nahay inaan soo celinno gacantii aad keenteen mid la mid ah ama ka weyn macnaheedu waxay tahay Soomaali haddii aan nahay waxaan nahay walaalo aan kala maarmayn dadkeenna halkan joogana oo ka mas-uula dowladda iyo dhammaan shacabka reer Koonfureed waa inaan aqbalnaa dadaalkii ay muujiyeen walaalaheenna waqooyi waxaan leeyahay marka qofna jirkiisa barkiis kama maarmo dunida maanta aan ku nool nahay oo dagaalku yahay xeeladaysi dadku ay difaac isu yihiin tiradoodana lagu tartamo khayraadka la isku dulmiyo maskaxda la isku gumaysto walaala-aan lama noolaan karo si aan jiilka dambe ee soo socda ugu wareejinno dal nabada dad midnimo leh nolol barwaaqo ah iyo magaca Soomaaliyeed oo haybad iyo karaamo leh waddada ama waddadii wadajirka ma ogiye waddo kale aniga iima muuqato maadaama waddada keliya oo noo muuqata waqooyi iyo koonfurba ay tahay waddada wadajirka waxaan leenahay waa inaan qaadnaa tallaabooyinka ugu dhaadheer haddii aan nahay dadkeenna jooga koonfurta iyagana waxaan leenahay walaal la-aani waa wax la-aan sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay khayraad iyo wax walba ku manaystay si ay u ilaashadaan khayraadkooda maadaama dunida iyo khayraadka yaalla iyo dadka dunida jooga ay dadku badan yihiin khayraadkuna yar yahay dalkeennuna uu ku yaallo meeshii walaalaheen ay gumaysiga uga soo xoreeyeen midnimadu waa astaanta jiritaankeena si marka midnimada aan uga shaqayno caawana maadaama aan joogno galmudug calankana la saari doono mar dhow 26 bishii Juun magaalo madaxda galmudug ee Dhuusamareeb waxaan ku rabaa inaan ku soo qatimo jawaabtii su-aashii Sheekh Shaakir oo ahayd inay diyaar u yihiin inay gogol fidiyaan waxaan leeyahay geedkii golihii iyo geygii iyo gurigii nabadeed ee Dhuusamareeb waa in la dhigaa gogol gacaltooyo oo looga shaqeeyaa in doorasho halkan lagu qabto laakiin si ay taasi ku dhacdo waa in la soo buuxiyaa shuruudaha ay mudan tahay oo ah in sida uga dhaqsaha badan halkan looga howlgeliyo dhammaan hay-adaha federaalka ay uga horeeyaan hay-adaha amniga si Soomaaliya oo dhan halkan ay u yimaadaan waa maasantiin reer Dhuusamareeb